ولذلك بقى تاريخيا كي إنجليز توينبي أرنولد توينبي وقرني لبعضنا دون ركرة تاريخيا كي وجوه يناير قلبت لهاين وأن كان له تاريخ الحضارات إلا تضبط إلى لبعضنا حضارة بني آدم كصام مريبو تاريخ ضوضاء وقري على كل حال ومستشرقين توجوه وين بوها توينبي أي وحوليه هي كور ربين الدرسان تاريخ دي النبي محمد وحاهل يسامبوليه سيجدون أمامهم من الأسفار ما لا يتوافر مثله للباحثين في حياة أي نبي من الأنبياء وحاهل يسامبوليه تاريخ دي النبي محمد كتب دنباهل يسامبوليه وأيضا ولقين كهلي كرين نبي كلا تاريخ ذا كم يدوين تعلق هياني تشرين إنني أدعو العالم بمركالي دوني ده وحن ويريا إن مبدأ ولا النمضة هي السنانطة لقى قاتبوا لي إسلام كأيان دوني ده ويريا ويقول لي عقيدة التوحيد عقيدة إله كلية شيء أو إسلام كل يمي وأروع الأمثلة على فكرة توحيد العالم وتصالها وفي عن ابن آدم دون ده كنا اللغم ذين كربوت المامية وإن في بقاء الإسلام أملا للعالم كله وارد وإسلام كوارانا خرج يطهبوا لي دون دون ما أنت إعلام كبوقا وحين لي إسلام كوا ترر كدون ده صحيح ما أقويها كودي تاريخ ضبارين وحلي وارتان كإسلام وحو أمل وياه وحو الرجاء يهيبوت المامية بن آدم لماذا وحن النبي محمد مسلم كشيء وحن ربعين أن كتقه وهي أمد والبا جيسي كده يبطل كده ينبي كده دواء أمانته وحلقة بين الترادان مركزي دواء ضدك الرميسنا وأمانية وحن سكدية وحن ساقطة إنه أبطان kadib baan quraanka dib ugu noqon hadii alla yiraahdo laakiin waxaan isku dayayaa waxaan soo qaadanayaa inuu u bato waxay aqoonyahankooda qoreen waliba waxaan horeysiin doonaa kuwa kriteeriyada qoray aqoonyahanka qaar reer galbeedka ah oo nabi maxamed wax ka qoray noloshiisa qayb ka mid ah intay qoreen bay ammaaneen ama tacaabiir duuduuba bay ka sheegeen aqoonyahanka qaarna iyagoo bini aadamka qiimeynayay waxay dejiyeen marka hore kriteeriya wax lagu qiimeeyo yani qofka bini aadamka ay noodan karno waa qaa'id ama waa hogaamiye ama waa mudan yahay waa qofka maxay qabtabay marka hore isweydiiyeen dabeetana kriteeriyay qoreen qofku waa inuu sifada yeesha markay kriteeriyada dhameeyeen kadib ayay waxay yiraahdeen bini aadamka aan ku tabaqna hadaba yaa la sifooyinka inta kriteeriyada qortaan wax ka soo qaadaya dhamaantood waxay tilmaamayaan nabi maxamed inuu yahay kuwa ugu mudan kriteeriyada bini aadamka lagu qiimeyn kara wata أنا أوقف مركز سوقاده فإحنا دين سوقاده دونا لامرتين ألفونسو لامرتين هي ماسرمان جوليوس ماسرمان هي مايكل هارت هي بروفيسور رو كريشنا وأفر دوني ذاك كلا ترسن ندوى هندي ندوى يهودي مريكان هي غير يوروب وضد كلا جديسن waxay isweydiiyeen marka koowaad bini aadamka maxaa lagu qiimeeyaa marka la qiimeeyo lama muusay leeyahay qofkani waa haliyay maxaa lagu qiimeeyaa umuman bini aadamku wuxuu yiraahdaa saddex shay baa wax lagu qiimeeyaa ama al-azama weynida bay leeyihiin qof leeyahay saddex shay baa lagu qiimeyn karaa kow bitibaaci wal akhlaaq wal mazaaya shakhsiya waxa lagu qiimeyn karaa bay leeyihiin sifaadka bini aadamnimo ee waa geesi waa deeqsi waa caynka yani sifaadka qofka bini aadamka insaaniyadu ay leedahay waa lagu qiimeyn karaa bay yiraahdaan waxa kale oo bini aadamka lagu qiimeeyaa bay yiraahdaan injaasaadka al-a'maal al-'azima وحقبتك ومدبو بدباديي وحاسو قبطي وحاسو كاني وحقبتكي سوا لغو قيمين كرا وحصد حدا بني ادم كلغو قيميا waxa weeyaan bay dhaadeen raadka uu bini aadamnimada kaga tagay intee qarni buu raadeeyay bulshadii uu la noolaa iyo qarnigii uu noolaa qura qof raadeen kula booha mise taariikhda bini aadamka ee soo jireenka qof kule raadeen waa aathar waa saddex qaybood oo wax loo qiimeyn kara bay leeyihiin in dhaqanka iyo akhlaaqda iyo miisaadka insaaniga lagu qiimeeyo in wax qabadka iyo acmaasha ka soo fushay lagu qiimeeyo iyo in raadku bini aadamnimada kaga tagay lagu qiimeeyo saddexda ka ku qiimeysay bay leeyahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam number 1 waxay yiraahdaan cadamada marka la qiimeynayo dadka bad qoom buu weynida u yahay laakiin waxa laga yaabaa qadarka uu kuwan wax u taray kuwa kalena inuu dhibay مثلا dagaalyahanada ninba dagaalyahanimo lagu qiimeeyay de qoomkiisa wuu guuleeyay laakiin qaar kale uu jabiyay baa jira bini aadamka oo dhan wax ma wada tarina qaarna wuu hiiliyay qaarna wuu ka hiiliyay waxa jira bay dhahan bini aadamnimada marka la qiimeynayo inay maxalli tahay raadayntiisa ama wax qabadkiisu inuu gobol ku kooban yahay qowmiyad min alqowmiyat inuu wax taray iyo inay tahay international
adduunka oo dhan inuu wax taray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihin biayi miqyaas aad wax ku qiimayso bashariyada dhammaanteed buu wax taray sidaa awgeed haddii akhlaaq iyo dhaqan la rabo bay leeyihin waa qof taariikhdu ay tilmaamayso inuu mutawaadic ahaa oo geesi ahaa dagaalyahan ahaa wax bixin jiray dulqaad badnaa sabir badnaa waxa sifaad qof bini aadama lagu tilmaamoo dhan saadiq ahaa iyo runsheeg badnaa ballan oofin badnaa waxa sifaad qof bini aadama lagu maamuusa bay leeyihin waa looga markhaati inuu lahaa hadday tahay raadayn waxay leeyihin caalamka ilaa maantay taallaa raadayntiisii oo wakhtigu nebi moxamed yimi calayhi salaatu wasalaam wakhti aan laa xuquuqulinsaan walaa xuquuqulbini aadam walaa wax jira aanay jirin bay ahayd markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xajatulwadaac uu tilmaamayey bini aadamka iyo maamuusnimadiisa iyo xurmada uu leeyahy aahaartu ka tegey bay leeyihin waa ta abuurtay xadaaradan dee islaamigaa dhammaanteed iyo dadka muslimiin ee dunida soo jiroo dhan sida awgeed ayi miqyaas wax lagu qiimeeyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa number one walidaalik baa waxa uu qoray will durant waxaan filayaa inuu yahay laa adri agnostic yacni kuwan aan diimahaba rumaysanayn atheist maaha waa agnostic waa laa adri yacni inuu jiro iyo inaanu jirin ma kala ogi anigu wax ma ogi baa la yidhaahdaa kaasi agnostiga ahi wuxuu leeyahay laba kitaabo waaweyn oo caano mid waliba dhowr iyo 10 volume yahay mid waa story of civilization taariikh alxadaara alinsaniya midna waa story of philosophy taariikh alfalsafa waa laba kitaabo volume isa kitaabkiisan la yidhaahdo taariikh alxadaara ama story of civilization marka uu ka warramayo taariikhdii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayaa waidaa xakamna cala alcadamati bima kana lilcadiimi min aharin fi nnaas qulna ina muxammadan كان أعظم عظماء التاريخ فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاق للشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانيه فيه أي مصلح آخر في التاريخ وحوليه هدين وينك ورنا يقف بني آدم ويندي وإنه كقيمين الراتك وبني آدم ككجتجي نبي محمد وحي هيبولي كان أعظم عظماء التاريخ dadka ugu waaweyn taariikhda la tilmaamo kooda ugu sii weyn weeyaan bulay dadka ugu waaweyn cudamada taariikh markaynu meel isla dhigno cudamada ugu cadiimkooda yahay ayuu ka ugu weyn yahay buu tilmaamaya waayo buu yiri shacab ku nool dhul kulul oo aan wax dhaqana wadanin carabtii jaahiliyadu tilmaamaya ayuu intuu nolosha ka saaray wuxuu gaarsiiyay buu leeyahay nolol bini aadamku tuu ku rayreeyo nololaha ugu sarreeya ka mid ah buu gaarsiiyay waxaan jeclahay inaan u soo noqdo dadyawa kale wararkooda laakiin bal nimankii kriteeriyada qaatay aan iyaga warkooda horraysiiyo waxa uu yidhi michael head aan soo qaato markoowaad michael head waa nin maraykan ah asal ahaan yuhuudiya naaso researcher ka ahaan jiray professor of physics ahaan jiray jaamacaadka takhasusaad badan leh waa maths waa physics waa astrophysics waa computer science iyo law shantaas subject ba takhasus buu ku leeyahay shantaba degree buu ku sitaa waa professor jaamacadeed buugaag buu leeyahay ugu caansan yahay buugga la yidhaahdo the hundred boqolka buugga la yidhaahdo buuggan hundredku waxa uu ku tilmaamayaa boqolka qof ee bini aadamka ugu raadaynta badan the most influential persons in the history of mankind ayuu tilmaamayaa boqolka qof ee ugu raadaynta badan bini aadamka waa buug 500,000 copy laga iibiyey ilaa 15 luqana ku tarjuman ninkan odaygii markuu masaladan ka warramayo isagu markuu isa sifaynayo wuxuu isku sifeeyay inuu yahay Jeffersonian liberal Jefferson waa madaxdii soo martay Mareykanka nin ka mid ah nin liberal oo isku sifaynaya laakiin qolada isaga ridida markay sifaynayaan waxay ku sifaynayaan inuu yahay conservative iyo racial separatist bay leeyihiin waa nin muxaafid oo infisaali cunsuriya bay odhanayaan iyagu nin yahuudiya oo dadka badh cunsurinimo ku sheegayaan oo Mareykan u dhashay oo buug qoraya oo buugga audience-ku uu qorayo wax ka iibinaya aanay carab ahayn ay yihiin dadka afka ingiriisiga ku hadla ayaa buug qoray yani waa niman xidhiidh ka dhaxaynin isaga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa buug qoray buugga uu qorayo wuxuu leeyahay waxaan ka warramayaa boqolka qof ee bini aadamka ugu raadaynta badan saddex shardi baanan u dhigay shardiga koowaad qofkani waa inuu qof xaqiiqi yahay buu tilmaamaya yani xaqiiqiga maxaa looga jeedaa waxay leeyihiin taariikhda bini aadamka dad baa iska jira ustuura loo malaynayo iminka xakiimu siin oo kale lawtso nin la yidhaahdaa jiro Chinese ay xikam ka soo naqliyaan waa sida cigaal shidaadkeenoo kale qof jiray ma aha mise ma ahayn ayay ku muransan yihiin
marka wuxuu leeyahay qofku waa inuu horta aanu noqonin dadka aan laba garanaynin qof xaqiiqiyo la garanayo waa inuu yahay waa marka labaad buu yidhi waa inuu noqdaa qof raad badan nolosha kaga tegey raad badan nolosha kaga tegey waxaan uga jeedaa buu yidhi xataa raadku ha xumaado ama ha samaado walidaalika dadka uu boqolka uu leeyahay bini aadamka ugu raadaynta badnaa Hitler baa ugu jira Hitler raadayntu dunida raadeeyay waa maxay dhib buu ku raadeeyay de wuxuu ku caanbaxay mushkilad marka wuxuu leeyahay bal adigu bini aadam waxa doonta ku raadee ama wali ka warkeen ama wanaag ka warkeen boqolka qof ee bini aadam ugu raadayn badan ma rabaa waxa kale oo uu tilmaamay inuu noqdo qofkaasi afarkiisu afar iqliimiya inaanu noqonin inuu noqdo maxay afar caalamiya dunidoo dhan inuu raad ku samayn karo buuggiisa markuu qorayay marka wuxuu yidhi saddexdaa qiimaynood marka aan ku qiimeeyo qofka bini aadamkee ugu mudan basharka dunida soo maray oo dhami waa nebi maxamed buu leeyahay calayhi salaatu wasalaam number 1 waxayaa buu yidhi nebi maxamed number 2giisa ma taqaanin waa sir isaac newton ninkii physics-ka number 3giisa ma garanaysaa waa ciise nebiyullaahi ciise isagoo yuhuudiya muuse muxuu ka dhigay nebi muuse nambarka 40aad buu ugu jiraa boqolka qof ee dunida raadaynta ku leh isagu nebigiisu raacsiisnaa wuxuu ka dhigay maxay number 40 buu ku tilmaamaya ciisana nebi ciisana wuxuu ku tilmaamaya maxay number 3 su'aal baa isweydiin le markaa tirakoobyada maanta la hayo ee dunidu ay sheegato masiixiyada inta sheegata ka badnayd baa la leeyahay inta sheegata muslimka waay uu ciise number 3 uga dhigay ayaa la weydiiyey maxaad ciise yani wan u geyn weydi waxa uu tilmaamayaa ciise waxa aan wanka u geyn waayey waa hal shay wuxuu leeyahay diinta nebi ciise qaybta akhlaaqiyaadka iyo waxa ku saabsan raadaynteeda nebi ciise iska leh ama caqaa'idda maanta kristanku haysta buu leeyahay polos baa kaga badan maxay ciise marka waa diin aan u qaybinaya buu leeyahay laba qof inay raadaynteeda leeyihiin qaybteeda caqaa'idda polos baa ah buu leeyahay qofka koowaad ee raadaynta ku leh dee tahliidka ninka ku waday weeyaan saddexdan ilaahay isku ilaaha ninka soo dhexgeliyey diinta tan weeyaan waa gruubka saa awgeed buu leeyahay ciise aniga agtayda wuxuu ka yahay maxay number 3 buu tilmaamaya ama buu leeyahay maxamed calayhi salaatu wasalaam isagu keligii ayuu hadday caqiido tahay iyo hadday akhlaaq tahay iyo hadday dowladnimo tahay iyo hadday waxaba tahay islaamka keligii buu matalaa buu leeyahay keligii ayuu yahay markaan bashariyadoo dhan eega buu leeyahay taariikhdii reer nebi aadam oo dhan markaan eego qofka ugu mudan ee ugu weyn ee raad lihi waa nebi maxamed buu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ma irhaabi baa ugu raad badnaan lahaa dunida intuu soo maro mise qof la caayo la yidhaahdo waa dumar buu jecel yahay ama caynkan buu sameeya ama kan buu samaynaya ama caynkan samayn kari lahaa ma waxa weeyaan innagaa gabnay taariikhdii islaamiga ahayd markaynu innagu soo bandhigi weynay iyagu inoo soo bandhigeen khuraafaadkoodii aneego axmed diidaad baa kitaabkiisan la yidhaahdo uu nebi maxamed weynidiisa kaga warramaya wuxuu tilmaamaya jariidadan timeska la yidhaahdo time la yidhaahdo 15 July 1974 soo baxday buu leeyahay ayaa waxay coverka sare ka dhigatay who were history's great leaders liidarada ugu waaweyn dunida ee taariikhda soo maray waa kuwama dabeetana jariidada inteeda ugu badan waa maqaallo rag la weydiiyey su'aasha ah yaa u mudnaa hogaamiye dunida soo mara dadka la weydiiyey jariidadana weydiisay dad doora bay ahaayeen oo kala nooc ah laakiin dhammaantood jawaabahay bixiyeen midnaba ma ignore garayn buu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mid kasta oo ka warramay dadkii ugu waaweynaaye dunida soo maray ee jariidadu qortay nin kastoo la weydiiyey liiskiisa waa ku jiraa buu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan qaar ka mida soo qaadanno william macneill waa mu'arikh waa taariikhyahan maraykan oo jaamacatu chicago ka tirsan ayaa jariidada maqaal buu ku leeyahay waxa uu leeyahay haddii aynu weynida ku qiimayno qofku inta uu raadeeyey bini aadamka waxa qasab noqonaysa buu yidhi inaynu xusno dadkii bini aadamka ugu raadaynta badnaa nebi ciise iyo buuda iyo muxamed iyo confucius ambiyadan dunida soo martay buu isagu leeyahay diimaha maanta joogee waaweyn ee dunida soo maray ambiyadoodii calaa xaddi qowlihi weeyaan soo isagu sheegay ayaa ugu raadayn badan nimanka wax la weydiiyey ee maqaaladan su'aalaha la weydiinaya waxaa ka mid ah nina janan mutaqaacid ah lieutenant general fariiq buu ahaa mutaqaacid ciidanka maraykanah james gaffin la yidhaahdo waxa la weydiiyey yaa ugu mudan qaadadii dunida soo martay kaasi taariikhyahan buu ahaa kanna waa caskari waxa dadkan loo soo qaadanaya waa dad viyuga ay wax ka eegayaan ay kala gedisan tahay oo ninka askarigii sibuu dunida u arkaa
ninka taariikhyahankiina sibuu u arkaa ninka culumta bini aadamka psychology wax la mida ku takhasusayna si kale u arkaya James Gavin waxa la weydiiyey yaa dunida ugu raad badan ee soo maray taariikhda wuxuu yidhi waxaan aniga agtayda waxaan ictibaarinayaa buu yidhi Muhammad iyo Ciise liilanna waan ku dari karaa buu yidhi isagana inuu ka mid yahay dadkii dunida raadeeyey nimanka jaridadaas wax ka qortay waxa ka mid ah Julius Masserman waa yahuudi laakiin waa muxallil nafsi waa psychoanalyst waa muxallil nafsi yani waa psychology qolada taxliilaat nafsiya qoladan ka waranta waa isna professor jaamacatu Chicago waxa la weydiiyey marka mas'aladatan wuxuu intaanan mas'aladan ka waramin waxaynu u baahanay bini'aadamka weynidiisa macaayiraynu ku qiimayno maxaynu ku qiimaynaa waxaan ku qiimayn karnaa buu yidhi kow qaa'idku inuu yahay saliimul qiyaada toosan oo yacni qof dadka intuu istiqfaalsado ku shaqaysanayo ku xoogsanaya inaanu ahayne qof quman oo dadka maslaxadooda ka warramaya inuu noqdo waxaan ku qiimayn karnaa buu yidhi qaa'idku inuu nidaam ijtimaaciya nidaam bulsheed oo bini'aadamku uu deganaan iyo xasilooni dareemayo inuu keeno waxaan ku qiimayn karaynaa buu leeyahay qaa'idku inuu mujtamaca u yeelo muctaqad mideeya yacni saddex criteria saddex shay buu keensaday mid waxa weeyaan bulshadiisa inuu homogeneous group ka dhigi karo bulsho afkaarteeda isku dhadhowday ama midaysan laba wuxuu ku tilmaamay nidaamkiisu inuu yahay nidaam bulshadu nabadgelyo iyo deganaanshiyo iyo xasilooni keenaya ka saddexaadna wuxuu ku tilmaamay inaanu danaysta ahayna dadka maslaxadooda qof wada inuu yahay saddexdaa shay haddaan wax ku qiimeeya buu leeyahay waan bini aadamkii dunida soo maray ku eego lacalla acdamu qaa'idin buu markaa yidhi kaana calaa mari alcusuri huwa muxamed marka saddexdaa shay wax ku qiimeeyo qaa'idka ugu weynee taariikh bini aadam soo maray waxaan filayaa buu yidhi inuu muxamed yahay waayo isagu saddexdaba wuu wada kulansaday buu yidhi muusena buu yidhi darajadaa darajo ka hoosaysaan geynayaa laakiin isna waa kulansaday nebi muuse calayhi salaatu wasalaam maxay tilmaamaysaa qadiyadani waxay tilmaamaysaa dadka wax qiimeeyey ee ama micyaar caskariya ku qiimeeyey ama micyaar psychology ku qiimeeyey ama micyaar taariikhiya ku qiimeeyey ama backgrounds aqoomeed oo kala gedisnaa lahaa oo ka warramay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhammaantood waxay tilmaamayaan inuu nebi maxamed mudnaa ama kuwa ugu mudan dunida inuu ahaa ama isagu inuu yahay kuwa mudan ka u sii mudan anka afraad soo qaato waa filosof Asia u dhashay Hindiya filosofkan Hindiga Ramakrishna Rao baa la yiraahdaa wuxuu leeyahay kitaab la yiraahdo Muhammadun Rasuulul Islaam Muhammad waa rasuulkii islaamka bug la yiraahdo buu leeyahay isaga laftiisu waxa uu ka hadlayaa uu leeyahay dadkii nolosha raadka ku lahaayoo dhan aan qiimeeyo buu yidhi laakiin dadka markaan qiimeynaya buu yidhi anigu waxaan soo qaadanayaa buu yidhi micyaar uu qoray dunidaba malaag kuwii ugu imtixaansanaa mid ka mida buu leeyahay Hitler buu micyaarka ka qaadanayaa Hitler wuxuu leeyahay buug la yiraahdo maxay kifaaxi min kampf miyaa la odhan jiray af Jarmalka dagaalkaygii buug la yiraahdo buu leeyahay Hitler buugiisa wuxuu odhanayaa Hitler waxa naadir ah waxa wax mar uun la arka dhif iyo naadir aan hore u dhicin buu leeyahay Hitler in la arka buu yidhi rajul nadariyaat qofka nadariyaadka keena filosofiga aragtida leh oo haddana qaa'id cadiima hogaamiye weyne dunida lama arka buu leeyahay ka dunida waa la arki karaa buu yidhi daaci ama khatiib aftahan wax hogaamiyey waa la arki karaa laakiin ma dhacda buu leeyahay inta badan dadka caqliga weyn leh ee nadariyaadka keena filosofiga keena falaasafo qaada ah waa laba gruub oo kala baxsan buu leeyahay inta badan falaasafadu qaada ma noqoto buu leeyahay good leadership ma noqdaan Hitler marka micyaarkiisani wuxuu weeyaan inay kulmaan awoodda aragti dejinta iyo nidaamka iyo philosophy inaad dejiso iyo awoodda hogaaminta iyo inaad zaciim noqoto iyo awoodda hadalka iyo dadka afkaartaada inaad gaadhsiin karto saddexdaasi inay kulmaan buu leeyahay Hitler waa wax aad naadir u ah waa wax aan nolosha inta badan lagu arag haddaba professor Rao baa markuu masalada Hitler ka soo qaatay wuxuu leeyahay haddaba saddexdu Hitler yidhi waa naadir qof ay ku kulantaan haynaa buu leeyahay saddexdaasoo qof qura isugu tegey saddexdaasiba waxay ku kulmeen buu leeyahay rasuulul islaamka diin iyo mabaadi' cusub la yimi hogaamin la yimi خطيب مفوه ضدك وحرب قارسيني يبولي وانا بولي في شخص رسول الإسلام رأى العالم وأندر ظاهرة على وجه الأرض بولي قفك إسلامك هو قاميني أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام
وحويان بيقول أندر ظاهرة ومقالك أغو دفئي نادر سن دولك كوركي سلغو أركي ديق يلف قاسم يسن بولي يسدح لا شيء وضوطه يعني فيلسوف كان يقول لي قف ديق يلف قاسم يسن وبناء آدمه وصدح ذا شيء سكوته محمد بن ورقنا بولي عليه الصلاة والسلام ولذلك بوحو تلماميا بوغيغان مركان قريه بو يري waxa igu adkaatay inaan nabi maxamed oo dhan ka warramo buu yiri laakiin waxa laga yaabaa buu yiri waxoogaa sawirraa inaan idinka siiyo maxamedkii nabiga ahaa maxamedkii dagaalyahanka ahaa maxamedkii rajulul acmaalka businessmanka ahaa maxamedkii rajulul siyaasiga ahaa maxamedkii khatiibka ahaa maxamedkii muslix ijtimaaciga ahaa maxamedkii agoontu ay ku soo hoyan jirtay maxamedkii addoomaha xorayn jiray maxamedkii dumarka xoreeyey maxamedkii qaadiga noqday محمد كاسب لي تاريخه سوح يروك كم إذا ما ندين شيء يقول لي بوجا كان مركان قريه النبي محمد كان نادر كما ورمي كريه يعني وحكى عذر دارنا إياه إن أنا صوّد بندقي كرين نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام جوانب العظمة قيبها وين وليه أيها الأحبة فيلسوف إنجليز كهاي توماس كارل لورنشري توماس كارليل وحكى ورمي يا عبادة الأبطال بوجي سن لا يراهضه وين ده أما بطل لماذا العابده dabeetana noloshu qaybinaya midba meesha uu ku weeyay ala kulli xaal wuxuu leeyahay diin marka aan ka hadlo ama rijaalka diin hogaamiyay marka aan tilmaamo buu leeyahay محمد عليه الصلاة والسلام waxaan shaki ku jirin buu yiri acdam inuu yahay dadka diin lagu tilmaamo inuu ahaa buu leeyahay muslix weyn oo aftahana oo geesiya oo mufakkira oo sifaadka bini aadam lagu amaano dhan la buu yiri waxaana ammaantiisa kuugu filan buu leeyahay inaad quraankiisa akhrido oo qura waa gaal ingiriis ninka warkan qoraya walidaalka ayuha alxiba senrostan السوج وسويدش ومستشرق سويدشه قرر قال يتبناد نولا أستاذ اللغات السامية بروفيسور اللغات السامية دائرة المعارف ررقي وحبضان قيب غاطاي كميدا أيا وحو ليه هي مؤلف كتابه كقور رمي قرآنك إيا بايبلك القرآن الإنجيل المحمدي بوليه قرآنك وبايبلك النبي محمد إيا بوك له تاريخ حياة محمد ليلاه وحليه هي مستشرقة سوريش كاهي ومينن عدالة سمين النبي محمد حدينو إنكرنا بيري وحي والصفات وين لها حدينو إنكرنا إيا تلمامها الوض دوران كربنا آدم ولها بولي حدينو إنكرنا وحي كمر خاطها تهي بولي نينن عدالة سمين ويا بيري نبي محمد دقال نولولات بو قلي بولي والله قلي جهلقة إيا همجن مدى وانو كوات كيستي مبديسة إلى أيو كان بولي الشريعة أكمل الشرائع وشريعة ما أنت الرقب بدأ الربان إن يدهدان وشريعة متوحشة أيونك أي سوريشكي وحليه هي فأصبحت شريعته أكمل الشرائع شريعة دي سوى حويا بولي الشريعة الله ديقو توفي عن أما غدا ما يسترن وهو فوق عظماء التاريخ ويري دكي وويناية تاريخ دو شيكتا يوردنا وكسر رأيه غوتي واتغانين غوتي وشكسبير كا شرمل وما دافك شرمل كا كو هادشا halka Shakespeare ugu jira dadka afka Ingiriisiga ku hadla ayuu gooteena ugu jira waliba goote Shakespeare waxyaabo aan gabayga ahayn buu gali jiray gooteeye u dheer yahay gooteeba wuxuu leeyahay hadaynu reer Yurub nahay buu leeyahay waxa laaliya waxaynu afkaar hayno oo dhami ma gaadhaysa buu leeyahay tuu Maxamed gaadhay waa gooteeba wuxuu isbarbar dhigaya aaraad iyo afkaarta reer Yurubka يلا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحدوني كانوا سنين عدقية لأنه عليه هذين الرجال قلبنا هاي مفاهيمتين نورنا من مجاريسه إلى ما وصل إليه محمد وسوف لا يتقدم عليه أحد بولي مستقبل كان ما في لا يعد في دونتين يشري دونت بولي وقطعي شرمل ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان تاريخ بردم بوحن باري بولي بن آدم كقفان تصالة وقدقه waxaan helay buu yiri nabi maxamed inuu noqday bini aadamka qofkii aan tusaale uga dhigi lahaa sida awgeed buu yiri waxa waajiba inuu xaq u muuqdo oo koreeyo sidii uu maxamed u koreeyay ee uu dunida kalimatu tawxiid ugu kor yeelay buu leeyahay waa gabyagii riwaayiga ahaa ee Francis Charmal ee macruuf ah taqaaniin dadka wax qiraa'ad bay u badan yihiin laakiin waan koobaya waxa jira gabya kale oo Charmal ah oo Francis ah والفونسو دي لامارتين وانين بوليتيشن سياسي بوها
oo second republickii faransiiska raggii qaybta weyn ka qaatay buu ka mid ahaa gabyaana wuu ahaa dabeetana wuxuu rabay inuu wax ka qoro buug buu leeyahay taariikhda turkiga ah turkigu wax ka qorayay maadaama uu turkiga wax ka qorayay waxa qasab ku noqotay turkiga dee diinta ay haystaanna inuu wax ka qoro uu milicsado dabeetana markuu akhriyay taariikhdii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa 14 sano kadib muxaadaraadkii Carlel uu jeedinayay kadib weeyaan markuu akhriyay ayuu wuxuu yidhi bini aadamka ama qaadada hormoodka bini aadamka kriteeriyan u dhigayaa buu yidhi aynu ku qiimayno oo saddex bal ninkana kriteeriyadiisa dhageysta wuxuu leeyahay waxaan ku qiimeynayaa saddex shay kow greatness of purpose laba smallness of means saddex outstanding results saddex shay baan wax ku qiimeynayaa buu yidhi qofka bini aadamka ahi inta ay sarraysay barbowskiisu himiladu raadcaynaya inta ay leekayd oo nabi maxamed himiladiisu maxay ahayd wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas baa ilaahay ku soo diray bini aadam oo dhan baan kuu soo diray baa ilaahay ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam bini aadam oo dhan inuu hogaamiyo yaa ayuha almudathiru qum faandir warabbaka fakabbir wahiyaabaka fatahir baa lagu yidhi idan wuxuu leeyahay qofku inta uu ka fakaraya ama iskoobka uu gaadhsiisanaya aragtidiisu ay ku socotay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin baa ilaahay ku tilmaamaya kan labaad wuxuu leeyahay idan nabi maxamed universal buu ahaa waxa uu ka fakarayay caalamka oo dhan baa ilaahay u soo diray jin iyo insigiisaba kan labaad wuxuu leeyahay smallness of means awoodda uu haystay inta ay leekayd dee nin maalan maanta ninka dowladda maraykan xukumaa dee wuxuu haystaa miiniskii dunida ugu ballaadhnaayo nin madaxa gacantiisa gala hadday dhaqaalo tahay hadday hub tahay hadday dowlad tahay hadday technology tahay hadday dunida ciddii hogaaminaysu maamulaa ama isagu ninkani qofku qiimaysanaya waa maxay qofkan waa inuu wuxuu haystayna inay wax yar noqdaan nabi maxamed markaynu eegno calayhi salaatu wasalaam dee wasaa'il dhaqaale ma haysan cidi lama soconin inan yaroo agoona oo meel cidlaa ku soo koray tolkiya dadku ka dhashay meel saxaaroo lama degaa bay joogeen carabi magac iyo maamuus dunida kumay lahayn labada dowladood ee waaweyn ee dunida ka taliya midnaba may ahayn yacni waxay ahayd uun meel bini aadam degan yahay meesha ugu dambaysa ee la tilmaamo ayay saxaara alcarab ahayd markuu nebi maxamed ka soo baxay calayhi salaatu wasalaam qodobka saddexaad ee la martiin wax ku qiimaynaya waxa weeyaan waa outstandingka resultska ka soo baxay nataa'ijka uu dhaliyey sida ay u weyn tahay nataa'ij raa'ica yacni nebi maxamed wuxuu leeyahay taariikhda bini aadamka haddaan saddexdaa shay ku qiimeeyo qof himiladiisu weyn tahay waxa agtiisa yaallaana ay yar yihiin awoodee u haysta midhaha uu dhaliyeyna uu midho caalamiyo aad u ballaadhan yahay markaan wax ku qiimeeya buu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay buu leeyahay qofka ugu mudan bini aadamka ee la tilmaami karo masalada uu ninkani sidaa u tilmaamay waxaa tacliiqinaya bosworth smith benyamin bosworth smith waa bishop maraykana buug buu leeyahay la yidhaahdo uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kaga warramayo dabeetana wuxuu leeyahay moxamed buu yidhi laqad kaana alqaysara waalbaaba ninkani waa bishop markaa labadii uu yaqaanay ugu awood badnaa buu isku daray nebi moxamed wuxuu ahaa buu yidhi qaysar iyo baabahoo la ysku daray buu yidhi yacni dowladihii romaniska boqor dowladda hogaamiyo qaysar la yidhaahdaa jiray iyo dee boobkii katoliga moxamed wuxuu ahaa buu yidhi labadaasoo la ysku daray laakiin haddana bal u fiirso laakiin buu yidhi muu lahayn lakinahu kaana baaban biduuni khuyalaa'i albaabawaat baabo boob aan lahayn buu leeyahay isla weynida boobabku ay leeyihiinna ma lahayn buu leeyahay rajul mutawaadica buu ahaa si kale markaan u eega buu yidhi waa qaysar biduuni juyuushi alqayaasira wa biduuni jeyshin mutaahab wa biduuni qalca wa biduuni dakhlin haabit wuxuu ahaa buu yidhi qaysar ama boqor aan ciidan lahayn oo aan qalcada iyo castalis meelo dhufaysya wadanin oo aan xataa buu yidhi mushahar qaadanin mushahar raatiba xataa aan lahayn buu leeyahay idan wuxuu leeyahay nebi maxamed wuxuu ahaa qaysar iyo boob la ysku daray oo aan isla weynida qaysarkana boobkana lahayn wixii ciidan iyo xoog iyo xoolo uu qaysarku watayna aan wadanin buu leeyahay labadaasoo la ysku daro haddana aan intan wadanin waa wax cajab qaba saa daraaddeed buu wuxuu tilmaamayaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay mithaalka ugu cadiimsan ee bashariyada soo maray linardo ayaa isna wuxuu tilmaamayaa leeyahay moxamed ina moxamedan acdamu albashariya qaatiba asdaq insaanin wujida calaa wajhi alardi buu leeyahay nebi moxamed waa qofkii ugu weynaayee dunidan soo maray waa insaankii ugu run sheega badnaa ee dunidan soo maray ayuha alaxiba waxaa idinku filan
soo ma ogid in United Nations inay leeyihiin kulliyad ku taala Talyaaniga Toronto bay ku taala oo kulliyad leadershipka lagu dhigo oo leadershipka yani United Nations keedii dadka ka shaqeeya leadershipkooda sida ay loo hogaamiyo ma filaysaa leadershipka ugu weyn ee loo dhigay inuu yahay Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam oo professor English dhigo Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam professorada Ingiriiska ugu caansan ee leadership ka warrama book buu leeyahay la yiraahdo qiyadatu Muhammad the leadership of Muhammad uu leeyahay kaasa laga dhigaa uu dhigaa United Nations ka qaadadeeda si loogu tareen gareeyo Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisii idan marka ay noqoto cilmi iyo jaamacad iyo taariikh iyo bini'aadam waxbaara iyo dad insaaninimada bini'aadamnimada ay qiimo u sameynayso Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam waa hormoodka bini'aadamka ولذلك أيها الإخوة هانس كونغ nin la yiraahdo Switzerland u dhashay doctora waa caalim lahuut theologiana ayaa wuxuu leeyahay taariikhdoo dhan baan baaray anoo ka baadhaya bini'aadamka qof aan tusaale uga dhigo nabiga carbeed ee Muhammad baan helay buu qof bini'aadam tusaale u noqon kara dadka aan tilmaamaya waa dad background kala gedisan leh qaarkood wadaadad diimeed ay yihiin qaarkood taariikhyahanna yihiin qaarkood ay janana iyo casaakir yihiin qaarkood ay usaatida jaamacadeed yihiin qaarkood ay physics iyo sciences ku shaqaleeyeen waa dad background kala gedisan leh laakiin isku dayay inay ka waramaan bini'aadamka yaa uu noqon karo hormood yaa magac iyo maamuus yeelan kara encyclopedia ingiriiska daa'irat al-ma'arif al-Britaniya maadada Muhammad haddaad baadho waxay leeyihiin Muhammad ibn Abdullah muassis ad-din al-islami wulida fi Makkah Muhammad ibn Abdullah iyo ahba yiraahdeen diinta islaamka kii aasaasay waa iyagu say u dhigayaan wuxuu ku dhashay magaalada Makkah تعبيرك كحجة وامحي وقليلون هم الرجال الذين أحدثوا في البشرية الأثر العميق الدائم الذي أحدثه محمد بيرادي إنسايكلوبيدياها إنجليز كوحلية هاي وحير بني آدم كدحدي سين لو أركو راتكو النبي محمد نولش كسميه وح كسميه بيليه وهذه إنسايكلوبيديا أي ساطن دقيقة توماس كارلين لو حليه وشهاب قد أضاء الدنيا وهلع ما إفتين دوني دردن إفيه بكتل مامية أيها الأحبة هذين نقطة وراها بني آدم يريد أن صار نقلية آد بي وتربضن طاي لكن وحن ربائنا نسكد أيه وراها بني آدمك وأنا دين شيء وحي إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحلي النبي محمد ورسولك إلهي رسول معناه يدنا وحويان واكو إلهي أنتو الدورتي بشرك وصادري نبي محمد وحجار كيهي رسول شكل ولا اسكسو دبدري جري رسول والبنا وحا لو سو ديري جري قوم غاره نبي محمد كو وحا ليدي رسول دبو لغا سو دبدريا ما جيرو diintiisu mana saxmayso laba qoom gaar ah looma soo dirin bini aadam oo dhan baa loo soo diray saadaradeed ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu quraanka ku tilmaamaya inuu ma dalla saaxibukum ma gawa haday tay noloshiya ahdaafta kama lumin haday aqliga iyo ra'yiga tahay ma lumin baa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ma zaqa al-basar wa ma taga ishiisu waa mid akhlaaq wadata mid xad gudubta ma haba ilaahay leeyahay alam nashrah laka sadrak ma kadhaba al-fuad ma ra'a لابتي سوا مدانو بلادينو شرحناي با ربي كتلماميا ورفعنا لك ذكرك مغعيسا نكوريا ليبا الهي ليه علمه الشديد القوى جبريل باو معلنا الهي تلماميا وانك لعلى خلق عظيم اخلاق في عمبات كسغنتي با ربي ليه سبحانه وتعالى الهي وحو قرانك كله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كون waa rusushi oo badh baan ka fadilay ba ilaahay leeyahay rusush marka laga yimaado basharka rususha u mudan rususha lafteeda kala mudan hadaba rususha kale oo dhan nabi ibraahim baa u mudan qalu fiirsa quraanka nabi ibraahim ilaahi buu baryaya wuxuu leeyahay maxay wala tukhzini yawma yub'athun ilaahi quraanka wuxuu ku leeyahay yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ah nabi ibraahim mihnadiisi buu ilaahi baryaya wuxuu leeyahay hasbi allah nabi muhammad sa ilaahi quraanka wuxuu ku leeyahay ya ayuha an-nabiyyu hasbuka allah nabi ibraahim wuxuu leeyahay waj'al li lisana sidqi fil akhirin ilaahu kuwa dambe magaciigu reeb نبي إبراهيم نبي محمد سيله وحليه ورفعنا لك ذكرك نبي إبراهيم وحليه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلى أن جاء أنت عندلي إن نسنا معبودنا كفوجه نبي محمد سيله وحليه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نبي الله موسى وحليه رب اشرح لي صدري إلهنا نبي محمد وحليه ألم نشرح لك صدرك نبي موسى وحليه ويسر لي أمري إلهنا نبي محمد وحليه ونيسرك لليسرى نبي موسى وحلا يحل عقدة من لساني إلى أن النبي سيقول فإنما يسرناه بلسانك نبي موسى وحلا وعجلت إليك ربي لترضى
إلهينا وحلي لعلك ترضى أبا محمد يقول عليه الصلاة والسلام. إذن الحسن بن الفضل بوحلي قرآنك نبي اللي بصفه إلهي إلا يسقط دري ما ترتبوا لي نبي محمد موياني إلهي قرآنك وحكولي إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نبي الله محمد إلهي وحلي بالمؤمنين رؤوف رحيم. آيات كسين تلمامينا وحي شيء مدنانته والنبي محمد كل حليه هي أنبياء الحديدة بل القرآن نبي هذا كلمة قعود الله ويرى يا نوح يا هود يا موسى بكسارتي. أما النبي محمد إلهي وحلي يا أيها النبي يا أيها الرسول بوصارتي يا محمد كما سارورين قرآن تشريفا له بيعلم إلى هذا مركا إنه تلمامنا قرآن كساروري نبي عليه الصلاة والسلام يا أمان تيسا يا أمان غفلا لكن ويرهن كله حنسوق هذا نيجون أنت عن قرآن كالرميسنيني الرميسن مقاييس كلو بني آدم كو وحكو قيمة يا بولي إن إنه تلمامنا بمقاييس يكون بالنبي محمد يا هي كمضن مركا لغو إيغو مقاييس بني آدم أما هدي لو باهي النبي محمد سيدنا بلو قدريو وحكو في القرآن يا حديث وحكو صاروري. ولذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام وحاو تلمام يا سيد ولد آدم وحنا هيبو النبي محمد لا يهي آدم بين تورد لي سيد كودي ولا فخر فأنكم مجرو بله وحاو النبي ينوشي عليه الصلاة والسلام آخر لواء الحمد كلين وشفاعة قاضي دور مركا عد ولا با أي إصنافس الشفاعة الكبرى إنه يسوي هي محي لواء الحمد كقاضي دورة إيش شفاعة قاضي دورة. نصوص القرآن يا حديثة كبدا وين بني آدم شيء يوردن أدي أن نصور إنه تكفينا يدا ينقفلا لكن ما دام ألد جنتين ضد ولا قرآن يا حديث رومينين وحن ربعنا أنت المامنه عيد النبي محمد لعاية يا إن أنا بوس كل حين بل حكترني مدى الرجال قلبك كقيبة كم إذا وحكم إذا ما أنت فرانس إن محرقة دي يهودا وحكشيك تواحرك كوي وحكشيك هنا والله حرا مثلا قار تاريخ ده قار كم إذا واحد هذين لحدا مليون ما يقارن إن دتك يهودا ماشي اللي قد لي علا ضوا ما حد دليل كينو واحد هذين يهودي جرمال كيين تندقنيت بلح مليون ما قارنين تاريخ هالمر كانوا حسابه نسادر هذا لح مليون هذا ما يورنين لما جوبين واحد لين ترضى أنت كير كمسلم هانا نجح هدو نينكي جوبي قرنا يولي لح مليون بان جوبي إقرار كده مرخاتي مضون وجوبتين بين لين يدن كملين هنا نرى يهود لح مليون لما جوبين وحباي كما صار هتلرين وفاشيستا ما نازيستا هانا مرنكم متشرو هذا يريرو كقرطان ويدادان لح مليون وددان وليني إنكار بقى قبتين بين ليني ما وحنو الدفاع عمياله لكن وحن تلماميا إن لا يرى مسألة دعضة حقيقة من حقائق الدنيا كم إذا هدات كهذا الشنة بني آدم دا وعبي جارسين إسا يهود لا يرى هذا 8 مليون دنيا دورنا مركي شوغانا نبي الله محمد ولا ببليون وقف رميسان تهي مركا العاينة وحرية الكلام إن نغطي حرية القول ومحتن كلي حرية القول ونقوم ويدي ومركا اللي قدون أيه سومالي ما حي أورين شرتي لا تشيفيانا بنان وداد بقول تاجي بي سومالي أورين شري مركا الله ربنا وحال أورين شري لا تشيفيانا بنان ولا تشيفيانا بنان سيدا وطالة ميديا هي بلشدة هي وحور دمي وحي أنا يدون إن ده هو يكلابتا نكرر قلبي وحقيستا ملفkiisa la baadhayo maalin uu dhakhtar ma tagay dad buu leeyahay walla bari buu dhakhtarka la kulmay adiga ka waalani haduu wax dilo waa muslim terrorist haduu waalay uu ka soo baxo meesha uu ka soo baxo cidi faylkiisa dib uma eegto idan walla jiifiyaana banaan bay leenahay laakiin taasi waxay isbedeli kartaa markaad adigu hadasho markaad adigu mu'taqadkaaga iyo diintaada difaacato markaad adigu soo bandhigto nabi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam لكن هذا أصبح حشون السويسري هذا تلو النبي مياد مدودي كريس ما حد هذا هذا أنا ضد النبي جاي قرنين دي مدفاعي كريس وأمرك الله بعض هذا أنا هذيك قلبي جاي كوينين ده دتك كله وينه كمان داعين كريس هذا هذيك قلبي جاي كوين يا هي قال كان يرى فرض حيرتي وهذا فرض كذا حيرناش وقال كسروال كذا بدأ الدلاعية وقلبي جاي كوين يا السروال كذا بدأ الدلاعينش لكن هذا عمامة ما كوفية حرته نبي أرمادو كاتبات سلا يان دتك كوكرني صحيح ما يا دتك كوكرني كوفية دي إذا هذا أكتاد كوينان ويا دو واحد رميسنايد هذا الدين كاجي يا واحد رميسنايد هذا أكتاد كوينان ويا دتك كلا أكتاد النبي محمد كوين هذا صورة قلمها مرك إنه النبي محمد وينين عليه الصلاة والسلام أيا دتك كلا وينينية إنك يحل كأن الطهي مركاسي دتك إن بدن بان أوجين بوحوها
intaan aan ka warramaynaa waa in taariikh baadhay oo wax baratay oo wax eegtay laakiin dadka inta badan dee miidiyahaasa u warrama maalinna sawir yaroo qaldan soo saaraya maalinna hadal qaldan soo saaraya kaasaa u warramaya marka dadku saas u rumaysan yihin idan waa xil idinka idin saaran inaynu bashariyada u sheegno nebi maxamed inaanu weynaynoo qurhe inuu yahay rasuulkii loo soo diree badbaadin lahaa aakhiriya adduunba إنه محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين